sharcigu wuxuu oranayaa meesha labada wadan xadkooga bariga iyo baddu iska qabtaan ayaa line toosan la dhigayaa line-ka toosan dabadeedna waxa lagu taagayaa line kale badda tagaya oo golocdu noqonayso ama angalku noqonayo 90 degree uu noqonayo marka Kenya waxay doonaysaa in laga dhigo 45 degree in laga dhigo oo dabadeedna xaggeena loo soo janjeeriyo innakuna waxaanu leenahay waxa weeyaan iyo sharciga adduunka sidoo oranayo marka labada line hays qabtaan waa inay 90 degree noqdaan marka bad fara badan oo innakuna aan leenahay ayaa la qaadan doonaa haddii xaggay doonayaan loo soo waciyo waayo waxay leedahay iyadu Tanzania midalan xad bay wadaagaan xadka Tanzania waxay doonaysaa sidii sharciga adduunka in loogu caano maalo Kenya waxay doonaysaa inay tiraahdo sharcigahan iska dhaafno haynu inaku gorgortano walaaltinimo wax walba haynu ku dhamayno waayo waxay isleeyihiin madaxda Soomaaliyeed ma garanayaan dadka ka shaqeeya waxaan la yiraahdo marine science-ka ama cilmiga badana waxay ka sheekeynayaan 3 meelood ayaa ugu kalluun badan Afrika mid waxay ku taalaa Morocco iyo Mauritania iyo Senegal xeebtooda oo laba badood oo mid qaboow iyo mid kulba isa soo gala midka kalena waxa weeyaan koonfurta Afrika dalka Namibia iyo South Africa hay wadaagaan ka saddexaadna waa Soomaaliya waaye xeebaha kale Afrikaanka oo dhan kalluunkoonu Kenya ma gaariyo kolka labada laga reebo marka kalluun fara badan baa ku jiro khayraadkiisu aad u kala nooc yahay oo haddii laga faa'iideysto Soomaaliya ka faa'iideysto lacag hayna heli doonto dibadda hay u dirsan karto iyo nafaqa caruurteena dibda ma aan loogu raadin abaar baa ku dhacday way macluulayaan ay halka laga helayaa taasi waa ta koobaad khayraadka kale laga hadlayaa waxa weeyaan macdan baa laga hadlayaa biro waa laga hadlayaa saliid baa laga hadlayaa gaas baa laga hadlayaa marka waxa kuntooda iyo miisaankooda lama oga laakiin Kenya ishaafalkayskooda waxa weeye inay ka hor dhacdo taas oo wixii laga helaba iyadu hay qaadato markaas